cilmiga baahida loo qabaay waxaa la ogaadaa markay fitanku yimaadaan. ilaahay cilmiga iyo iimaanka khaaliska ah qofka wuu kaga badbaadiyaa fitanka. fitanku waa laba qaybood oo waa shahawaad iyo shubuhaad wey. qofkii isagoo garanaya wixii inuu xun yahay inay naftu ka xoog badiso, oo wixii isagoo garanaya xaaraam inuu yahay, isagoo garanaya inuu dembi yahay, isagoo garanaya inuu xun yahay inuu dabaasho. qofkaas shahwa jiidataye oo nafya waxay jeceshahay iyo shaytaan gadaal ka riixay iyo insiga shayaadiinta ahabaa riixaya. laakiin cilmiga waxaa lagaga badbaadaa taas markuu qofku garanayo waxaanuu doonayo ee naftu ku riixaysa rabitaanka nacfigu ka gaarayo iyo cuquubada iyo dembiga ka dhalanaya, ciqaabka ka imanaya aakhariya adduunba. markuu qofku aqoon u leeyahay marka uu isbarbar dhigo shahawaadka qaybo kamida waa lagaga badbaadaa cilmiga. oo nacfi markaad raadinayso haddaad garanaysa dhibka ka imanaya inuu ka badan yahay iyo haddaadan aada u garanayn dhibka ka imanaya inuu ka badan yahay, saameyn bay qofka ku yeelataa qiimeynta iyo qadarinta uu leeyahay. adduunyadii shahwadeedu dadka qaarna ilaahay cabsidii baa ka celisa, qaarna sharci cabsidii baa ka celisa. walidaalika baa sharcigu marna dadka la jeclaysiiya ajir la helayo, marna cadaab baa lagu cabsiiyaa iyo xuduud la ogayo.